وحويان برشلونة عياري هبينكا وحويان برشلونة أيها هبينكا جوليستي عيارتي دي لليغا goor horeba Barcelona waxa gool hayuhu wareystay ninka raado Lamine Yamal qaybta hore Barcelona gool badan bay dhali kareen wax badan bay khasaariyeen waana ka sababta markii aad gool badan khasaariso gool laga bareejeeyo wati Barcelona laga bareejeeyay laakiin Lamine Yamal gool hayuhu hore Barcelona ninka beentu ku horimaado wareystay gabiyahan yaa u dhaxbixi mataqaana olma u dhaxbixi halkaas loo dhigay intaas oo iska dawar wareegi lahaa Bedri la iskuma hay Bedri inuu laacib yahay waxaan ka hadlay waxay tahay badqabkiisa intuu sidoo ku jiraa badqabkiisa waa waxay tahay in Bruniga dhag ka siiyo bes intaas waa soo kooxdan Bedri u baahan tahay muhiim u yahay kama maarmaan laakiin intuu iska dawal walaaqayo iska dawar wareegayo adduunyo ah qabo jag hore ka sii yaa marka wax weeyaan Lamine gool hayu wareys wana ka dhil runtii waad arkaysaa tani markii video call ku kula hadlay goodkiisa ama idolkiisa ninku ku daydo Neymar ilmo Neymar waa reer Messi ilmo Messi ma ninkan dabeecadda iyo baashaalka iyo dheelka iyo waa ilmo Neymar waa isbalansad waxay yiraahdeen جولا بلن بالري والله قدان اسرو ايمان فاينل عمل حق لك سي بخينا الري معناها يا marka Lamine Yamal ciyaar soo xiga iminku dabaaldegii Neymar buu sameynaya oo idolkiisa ah kadib markii maaloodu video call kala hadlay macnaha wuxuu leeyahay ima shidnaan iyo magaalka ishid buu leeyahay runtii ya marka waa kaayo Barcelona kadib goolkii laga bareejay Ferran Torres ayaa goolka Ferran intuu goolkaas dhalay halaha gool ku qoys arki lahayd hatta marka qaar hatta iyagu difaacay kooxda ka soo horjeeday ilaa markii dambe uu gool dhaliyay si fiican Frankieba ugu baasay حتى جول هاي أنتو مريبو هذا مثل خسارية العموم مركا برشلونة هبين كوايت كادن سدح جول يو وحيكوات كادن جول كدب راشفورد باكون دري جول بدهم يكون كويستين ماجي جمال بانا جول كعاوي كاس أو سيسا كان جول ربحته جاري جول شو اللي حاجة للصورة في الليجا already سكان سكوا عياري كلية ستة طبعا عيارات وحول اللي سيسا للصورة في تولي أو هيت سجال جول مركو صد شن عياري سيسا للصورة في ريال كسال جول بولي هذانا ستة طبعا كلون بوسال كي جول هيستا مركا عوا بارشين كسو جوان جول أيو قلمين كوبا ديان هدانا ما ينقون أو صدح جول بكوبا ديان ستيل أفر لبعود بهوغان كان ليه كوهيان يا ويلك عدي وهيلا عياريان كوح آد ودبتي مانتا العياريان نمان قال رياضو مارينجيسكا نمان كاس أو أي كريلايين مدويك مودن بي ورايو فالكانو إنكاستو يكو عياريان غرونكا سانتياغو برناباو مركا انت ليفربول أيا يانو هبينكا وحالغا يابينك إكتكي أها قيبتي كواد ليفربول intii gool looga hormaray Anthony Gordon ka dhaliyay ayaa waxa dhacday in laba daqiiqo gudaheeda uu laba ku bedelo Ekitike waa ninka ugu gool badan si kan weeyaan kooxda Liverpool moogtahay waana siciid si kan la soo gatay ninka ugu khatarta badan waa Ekitike inkastoo Isaaq uu kaydka ka sacabtumeen arkay runtii ay isagu bariyahan waa iska dhaawacna ninkaas inaba caadi maan Ekitike aan markuu la kortay dareemay farale jag lagu sii ka war warakaas xariif waade ninkan waa nin la soo cambuuleystay Messi iyo garoon la soo galay waa ninkan PSG Mbappe iyo Neymar iyo la soo cambuulaysan ninkan dad waaweyn ayuu la cambuulaysan yani uu boss ish ka dhahanay macnaha 15 gool ayuu Sisaka u dhaliyay markuu labadaas gool waxay ka dhigneed inuu kooxda Sisaka 15 gool tartamado idil ninka ku soo xigay Liverpool 8 gool Szoboszlai weeyaan Gagbo 7 gool Mohamed Salah 6 gool Vers 5 gool waa markii labada gool u dhaliyay baan ka hadlaya sawirka kan aan qaaday marka ninkan easy ma hatta Sisaka la soo gatay waa ninka dhaliyay goolasha ugu badan ciyaartooy Premier League ka ciyaara tartamadooda waa ninka ku lug leh goolasha ugu badan weeyaan Ekitike wuxuu ku lug leeyahay marka labadaas gool lagu daray habeenka 15 gool macnaha 15 gool intuu dhaliyay ayaa wuxuu caawiyay 5 gool yani already 20 gool ayuu kooxda Siskan siiyay 20 gool buu kooxda siiyay kaliya ma aniga Liverpool ugu gool badan hatta waa rasaxeeda la soo gadkan ugu halista badan weeyaan goolasha la haysto 15 gool balas 5 caawina Joe Pedro kasto habeenka intuu soo galay uu gool caawiyay 5 gool uu caawiyay Sisanka waxaan u dheer gool lii oo ah 12 gool inuu dhaliyay marka ninkaas oo kale isna waa nin kale oo xariif ah wuxuu haystaa 12 gool iyo ninkaas wuxuu haystaa 5 caawin xariif kale waa Yogeresna habeenka gool buu dhalay runtii taas oo ka dhigan in 12 gool isna uu haysto iyo 3 caawin Sesko 5 gool buu haystaa iyo 1 caawino marka ragga la soo gatay ninkan baa ugu xariifsan alcumuum Liverpool habeenka iyo Newcastle qaybtood markay 2 gool iyo gool ku dhamaatay dib Liverpool waxa gool kale ku daray ninka la yiraahdo Verts ninkaas waa laga shaqeeyay ninkaas jirkiisa muruq lagu daray ninkaas waa la fahmay adiga Barcelona saas ay jirtay berigi Neymar uu yaraa oo uu Brazil ka yimaadayo jucuf uu ahaa dadka xataa jir iska saari karin muruq bay ku dareen jirkiisa hadaba ka Verts kan 14 gool ayuu kooxda ku lug leeyahay siiyay yani waliba inta waxa ku dheer Verts 10kii ciyaar soo af Liverpool si series buu ciyaarayabe marna ha ka shakin 6 gool buu dhaliyay labuuna caawiyay marka ninku waa kacsan xataa Ibrahim Liverpool waa ka deeri weysay waxay yiraahdeen إبراهيم من السوق قارت ذو أخي تعسوا كوجنها أذوقا أنت يرى متأسق مالو
khudbadan tii koreys wuxuu lahaa mataqaana aabbe khudbaan ku dukanayna maanta khudbadan ayaan janaasiisa ku dukanaynaa buu lahaa isaga waa nin muslima marka Liverpool dhaawac ayaa galay marka waxay yidhahdeen Ibrahim waa inkastoo balay footballka iyo familku first yahay mar walba familku wax ka hor ayaanu jirin marka waxay yidhahdeen Ibrahim waa naga soo gaar leed waa iska rabi lahayn yidhahdeen waa u yimaada caawa u ciyaaray yaa horyaalka oo ay badin waayeen sida sanadka loo galay oo dhan Liverpool ogtahay waa guushii ugu horeysay oo gaareen weeyaan sanada 2006 kadib bareejo kale laga badiyay wareersanaayeen habeenka ugu dambeyntii way badiyeen marka Ibrahim Premier League habeenku waa yimaaday markuu soo laabtayna line-upka ku soo laabtay habeenka waa uu dhaliyay wuuna ilmeeyay ciyaartoy Liverpool dhanba garab istaagay marka waana goolkiisii labaad uu Premier League ka dhanlayay ninka kan marka Liverpool habeenka guuluhu ku soo laabteeno taasna waa taa tawbur way isbadbaadinaya xilli pressure uu fuulo oo Alonso xataa diyaar uu yahay haddii tawburu natiijada uu bedeli waalri Alonso la Kenya baa laakiin odagu waa isfurdaamay habeenko waa markii 12 taariikhda hore gadaal u marayeen seasonka Newcastle aad u jeceliin Liverpool Newcastle kuma adkayso warim in Ilaahay u jibiyay nimankan u jeedo nimankaas Ilaahay baa u jilciyay waa seasonku waa markii 12 taariikhda oo seasonka labada ciyaar bukoon hore gadaal u marayeen dhinaca kale Arsenal dacadii habeenka guuleedana dib ugu soo laabteen kadib markii bariyahan ay badin waayeen saddex ciyaar ka horeysay nimankii waa guuleysan waayeen laakiin habeenku waa badiyeen waa kala tuuray qaybtii koodba ladies qaybtii koodba Zubamendi ka dhaliyay an gool badan iska dhaliyeen Yogretsa mar kale ku xijiyay qaybta labaad ciyaarta gool Jesus baa ku daray afar gool bay ciyaarta ku badiyeen mid an gool buu ahaa howlahoodu waa fardhiskooda ku turteen marka Gunners dacadii ya City hol baa loo diray waxa leeyahay waa badiya adiga la waaye marka waa arki doonaa kulay maanta City kooxday la ciyaarayaan Tottenham weeyaan waa koox bariyahan liidata December baa guul ugu dambeysay Premier League laakiin marka City la ciyaarayaan duuma iyo balaaya ku soo kacdaba war qof Ilaahay ku imtixaamayo waa arki doontaan kulay waa arkayna caawa xirmad laakiin haday City ku faan waa sababtii wariyaashi ku dhahayeen wax kala ma aha Arsenal muxuu badnee kooxaha la tartamaya liito zero ah waa sida ka oo badin karin inkastoo ciyaartooyga Man City Bernardo Saudi may u lahaa Arsenal guriga Gillian buru mugta maalmihi la soo dhaafay xitaa haddaan January sanadka cusub guuleysan weyno in badan waxaan arkin Arsenal sii soconayn marka waxa weeyaan rajaana gashay buu yiri macnaa oo Arsenal rajo ayna Gillian buru macnaa marka taas waa taayo kulay The Gunner afar gool bay ku badiyeen daacadii sanadku wali waa sanadkoodii buu noqon karaa Maduki ayaa iska soo afjaray caawin la'aanta waqti dheer waliba Bukayo Saka ayaa isku leynta ku dhaawacmay xilli Chelsea la ciyaarayaan isbuucan Carabao Cup lugta labaad laba gool buu ku caawiyay 45 daqiiqo ugu horeeyay ciyaarta ninka la yiraahdo Noni Maduki wana wuxuuna soo afjaray 30 ku ciyaar Premier League oo bilaa uu caawin u ahaa waxa ugu dambeysay caawin inuu sameeyo 15 December 2024 ayaa ugu dambeysay oo Chelsea ka tirsan iminku Premier League waa markii ugu horeysay gool caawinayo 30 ciyaar kadib Zubamendi oo tobaad khalad asagu gal lagu ciqaabay wana khaladkiisa afraad tan uu Arsenal yimid uu galayo ayaa dhaliyay goolkiisa shanaad gool muhiim buu ahaa seasonko kooxdu meel buu ugu soo baxay laakiin isagana Spain waa mugta intuu saan u baasbaasay xataa marka qaar gadaal u baasanaya Chelsea hadda koor waxay soo gadateen Jorginho markaas aan dhigi jirnay Master Bass kan zaidka laga mar baa la dhigi jiray caawina laga rabaa la dhigi jiray marka kan waa Spain waa dhac intuu siino marka qaar asaa dhiibana macnaa marka laakiin 5 gool muhiim buu iska dhisiyo taas wata waxa Yogres inuu gool weedin fiicnayd maxay maanta aan goolkiini shanaad baad dhaliseen marka isku mid bay noqon lahayn Yogres marka Yogres waa ka booday oo hal gool ku darsaday maruu idin celiyay taas oo ka dhigaysa ma taqaana goolkiisii lixaad ee seasonka marka aan gool still laakiin asaga iyo aan gool shan bay ku haystaan iyo tosad still on goal waa ciyaartooyga Arsenal ugu gool badan oo Premier League season kano Eze afar Saka afar marka taas waata xilli ninka la yiraahdo Yogres isagu wali inkastoo gool ku imaamatay uu khasaariyay gool macnaha ninkan la fuweyn waano muruqata wax si u tagay ninkan ma fudfudo waa ka tiga camal balaq waa jig loo ku siina macnaha beeri ninkan goolkaas tuu si isdaba ordayo yani liicaya laga daymaadayo laga badbaadiyay marka Arsenal waa ay badiyeen leeso waxa la City adiga la waay anigu jawaalkii waa soo fashtalay taa wata wariyahay anigu caawa anigu Chelsea baan ka yaabay Ilya Rosner oo kiyaal waa waalay season kan oo kiyaal inta laba gool looga hormaray ayuu wuxuu yiri Kenny Gish labadii gool wariyaha oo kiyaal aniga oo kiyaal Mourinho ka dhex arkaya Justeski Mourinho camal wariyaha maadaama waxaad arkaysaa new era baan galina 20 sano kadib ama dhowr 20 sano kadib markii Mourinho u yimaaday nin Chelsea yimaaday waana waalay haddana
waqti dheer kadib hadda nin Justin kooxda soo galay mala cabsanay laba gool looga hormaray labadii inta la keenay gool saddexaad lagu daray Rosner ayaan tan inaga hadlay waxa war on Okiyaal waa ka cabsaday markaas wax ku soo qoray ma taqana wala Okiyaal labadii ma ka yimaadeen eri waana ku daraa waana ku dari leeyahay Okiyaal taw barwa dad waxay ilaa cunuga yariiska inta isgeena Chelsea la lahaa laakiin shaqeynaya laba inta looga hormaray yaa bedel uu sameeyay yani raggu bedel ku soo galiyay Joe Pedro iyo Cucurella ayaan labadii gool keenay waliba Joe Pedro isaga caawiyay goolka saddexaad ciyaarta Enzo Fernandes xilli dambe linkaasna gool ugu baxsadaa ka war marka Blues saddex gool bay ku badiyeen bedel shaqeeyay buu ahaa waa shan ciyaar isu xigta iminku badinayo Master Okialo Liam Rosinero Ferry waxa uu ku dhuftay laba Brentford wuxuu ku dhuftay Bournemouth hal ever saddex wuxuu ku dhuftay Blaze Napoli saddex ka soo kiciyay iminku West Ham saddex ka kiciyay ninka nin qatar badan weeyaan Rosinero la yiraahdo runtii waxaana Chelsea markan ka hor ay ahayd kooxda kaliya hal ciyaar badisay sagaalkii ciyaar la soo dhaafay horyaalka intuusan Rosner kooxda yimaadin balse iminku waa ka saddex ciyaar xiriir bay kooxdii badinaysaa waliba intaas waxa ku sii dheer Rosner todoba ciyaar uu kooxda maamulay lix ciyaar bay badinayaan shanna waa xiriir mid kale walaalood ayuu ma darsanne tababarihii Ingiriiska laga diray ayaa ku shaqeynaayo isaguna saddexdii ciyaaroodba saddexdiiba waa guuleystay runtii waa Chelsea walaalood ba laga soo qaaday kilo dhibina waa ka shaqeeyo marka Rosner waa nin wax ka maadaama darbu yahay kunku isku tahay dagaal iyo buuq ba ka dhaca hadda ka hor aabihiisa u jeedin ninkan Rosner isaga dhalay yaa kulan garoon West Ham ka dhacay Chelsea West Ham sila ciyaarayeen yaa 88 kii bay ahayd 1998 ahayd abi Rosalsi maalinta Chelsea laba kale abi Chelsea waa la garaacay maalintaas Rosner asoo canug yar daawanaya habeenka Rosinero abi Rose u qaatay marka kulan asoo yar uu soo daawan jiray weeyaan dagaalkiisa marka ninkii Cucurella wuxuu ku kiciyay Adama Traore xoog weyne Adama ninkii dhan sida musaaricada camal buu kala tuuray kadib Joe Pedro iyo say ka dhaxkacday Joe Pedro iyo todib mid la iska sii dhaxkacday todibaha Rosalsi markaas anigu ciyaarta waxay ku soo dhacday Barcelona waxay sinaytaa waxa ku dareemay Saacadna waxa ku soo dhacday Saacadna waxa la Madrid ciyaarana loo soo bandhigay oo madaxweynaha Madrid uu yiri wax aniga cid kasta ay keenine saxiix maruu intiida igu filan bursisan marka ciyaarana badan baa loo keenay Madrid inay qaato loo soo bandhigay way diiday Madrid Madrid easy ciyaarana macna qofkii wakiilka iska soo bandhigay ma qaataan wadan ilaa marka Barcelona kale oo leeysan oo qofkii loo keen arkeen buu waan anfacay waa jacburnin dhaaysa amal tusaalahan waxa arkaysaa hadda ninka Adama Traore hadda mar dhaweyd Adama inkasto akademi Barcelona soo baxay mar dhaweyd Barcelona waa ka maarmuys Adama Traore ay soo qaateen ama uu ku aan qiyaasaya Adama ay Barcelona qaad atodibaha u jeedid Barcelona buu ahaa marka waxa yiri Barcelona dad waa soo haysay todibahan iyo Adama Traore West Ham iska wareegay la laama rabo Serbia sidoo kan ma Barcelona soo joogeen ardad hays waa Barcelona baan iri ya marka waka marka jacbur waa ciidaas waa lagu koriyaa marka laakiin taas ay tahay way ku guuleysanayaan niman caadi ma aha mid kale Garnacho waa tii qaybtood la bedel runtii maalin xun bay u ahayd taageerayaasha kooxda Chelsea waxay laayeen Garnacho waa lagu soo siray Allah Manchester United waa naga badiseen kan waan ugu soo sirtay leeyahay runtii taageerayaasha waxay laayeen blue kii ugu xumaa maalinta buu ahaa ciyaarta oo maxaa ku dhacay ninka kan runtii qaar waxay laayeen si xun buu ahaa yani ninka kan qaybtii koowaad ku badan buu lumiyay 56% weerarka kooxda West Ham garabka waxa uu ka imaanayay isaga garabkaas bay ku xooganaayeen waa tii markii dambe tababaru bedelay rag lagu soo bedelina ciyaartu ay bedeleeno marka taas waa xilli laacibkii kooxdaas West Ham ka tagay Paqueta waxa la Jikatorka waaba kii maalmihii ugu dambeeyay baxayba oo bari ugu dambeeyay Jikatorka mano ciyaareen Paqueta kii sharad leegi waa intuu lacag urursan karo waa urursaday wuxuu isaga laabtay Brazil oo numbarkii uu kooxdaas ka qaadan jiray ninkii finish aha ayuu halka ka xirtay marka Paqueta bari ugu dambeeyay dhaaw kooxda ugu dhaawacnay ilaahay laakiin asaga wuxuu dhahay waan baxayaa sababta ugu weyn marka Bireen u ciyaarin waxay ma dhaawacneen asaa wuxuu laawaan tagaya marka hadda kooxdiisa ku laab saacad ugu dambeeyay si weyn baa loogu soo xataa ku faanay ma taqaana wuxuu yiri kooxdeeday wuxuu yiri waxa in ka soo doortay u leeyahay maxaa lahaa kooxo weyn baa in ka soo doortay Chelsea ay rabtay u leeyahay runtii wakiilkii soo wacay Chelsea ku rabtay laakiin waxaan aniga kaliya Filimango baan ku beeriyaa maan ruulay runtii marka xataa mar buu loogu saddexdii Manchester ku beeri gaaray Paqueta 80 milyan kaararka uu si ula kac u qaadanayay marka taas bay Manchester dhaftay saacada ninka mustaqbal weyn buu lahaa Pep Guardiola ba aad u rabayo intaasna waa inta